الله وبركاته وأنا سلامي dhammaan asxaabta youtube-ka casharkeenu maanta wuxuu ku saabsan yahay sida loo jabiyo programmada sawirada la geliyo iyo mobilkaba applicationada lagu xidho hada marka doonaysa inaad jabisid keepsafe-ka sawiro ku jiro oo kale oo password-kaaga xiran yahay password-ka aan garanayn aad u baahan tahay inaad jabisid horta keepsafe-ka jabinayna password baa naga xiran wada aragtaan maba garanayna ba kasoo qadan wada garanaya waxaan ku tusay hal sawir ayaa igu jira sawirka wixii igu jira xitaa ga bixi maayo marka doonayna jabiyo password-ka ka soo qaado maba garanaysid inaad aragtidna waa rabtaa waxa meesha ku jira waxaanu tegaynaa city-ka markaynu tagno waxaynu ka dooranaynaa application manager ayaanu ka dooranaynaa halka ay ku qoran tahay application manager waad aragtaan asxaabta application manager markaad dooratid waxaad ka baaraysaa keepsafe halkay ku qoran tahay keepsafe waad aragtaan keepsafe ayaynu ku dhufanaynaa ama taabanaynaa keepsafe markaynu taabano waxay clear data ayaad ku dhufanaysaa oo kale leedahay all datadii oo wixii oo dhan uu ka dhil garanaya password ku xidhnaayo wixii oo dhan uu ka dhil garanaya laakiin sawirada ma ka baxayaan la soco asxaabta marka aynu ka noqono waxaynu tegaynaa keepsafe-ka ayaynu soo furanaynaa keepsafe-kii markaynu soo furano waa kaas wuu kuu soo saarayaa inuu cusub yahay camal oo kale markaa kusoo dhufatid create new password ayuu ku leeyahay waad aragtaa abuuro password cusub adeerto geli password cusub ma doonayno markaa password aynu gelinaynaa cusub ayaynu isku sameynaa 3366 camal oo kale ayaynu gelinaynaa tusaale ahaan tijaaba okay ayaynu leenahay marka la tijaabo ayaynu odhanayaa password-kaad gelisi waynu tijaabinaynaa okay ayaynu leenahay enable to play remember me halkaas ku dhufanaysaa enable pin waad aragtaan halkii sawir inagu jiray uu ku jiraa waa si yar oo easy ayaad ku jabsan kartaa sawiradana ku arki kartaa hawshaada markaa ka dhamaystidna password ku xidhi kartaa marka wax yar oo fudud oo easy asxaabta waa salaamantiin casharkeena maanta intaas ku saabsan yahay waad mahadsantiin dhammaan hana ilaawina subscribe tirahdaan wabillahi tawfiiq